habeen wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay qodobada wararkeena caawa aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya boqor buur madow oo mar kale weerar afka ah ku qaaday garaadada maamulka waqooyi bari sheegayna in ay laasacaanood gacanta ku dhigi doonaan dhowaan haddaba maxaa ka jira in boqor buur madow uu abaabul dagaal ka bilaabay qaybo ka mid ah gobolka Sanaag dhawaana la doonayo in weerar lagu qaado magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka Sool waxaan idin la wadaagi doonaa xogo iyo macluumaad soo kordhaya oo arrintaasi la xiriira qodobada kalena waxaa ka mid noqonaya saraakiil uu ka mid yahay General Odway Yusuf Raage oo ku wajahan furmaha dagaalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo amar ku bixiyay in bishan inta ka dhiman lagu qabto degmooyinka muhiimka ah ee dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe haddaba duulaanka culus ee ku wajahan magaalooyinka Aadan Yabaal iyo masaajida Cali Gaduud oo la sheegay in ay faarujiyeen maleeshiyaadka kooxda shabaab kadib duqeymo lagu garaacay ayaan idin la wadaagi doonaa xogta iyo macluumaadka arrintaasi ku aadan qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya dagaal u dhaxeeya maleeshiyaad ka soo kala jeeda beelaha Saleebaan iyo Duduble oo xilligan ka taagan gobolka Galgaduud iyo xiisada labada dhinac u dhaxaysa oo cirka isku sii shareeraysa tan iyo wixii ka dambeeyay marka hooyada iyo caruurteeda lagu gowracay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud waxaan idin la wadaagi doonaa xog iyo macluumaad la helay oo arrintan la xiriirta iyo sidoo kale xiisad dagaal oo laga cabsi qabo in ay ka qaraxdo gobolka Galgaduud qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya xilka qaadista wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo miiska saaran iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo safetiisa ay dul taalo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre maxaa ka jira in ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre la doonayo isku shaandhaynta golaha wasiirada kadib in la bedelo yeysa soo qaban doontaa seefta ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre maalmaha soo socda gaar ahaan maalinka Khamiista ah oo lagu madalsan yahay in isku shaandhayn xoog la sameeyo waxaan idin la wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay iyo macluumaad arrintaasi la xiriira qodobada iyo qodobo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaa daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir like saar muuqaalkan subscribe de buggan si aad uga mid noqoto saaxiibada halkan joogtada uga hela wararka warbixinada iyo macluumaadka mar walba aan halkan idinkugu soo gudbinayno haddii aad hadda nala soo qabsatana waxaan kaa codsanaynaa inaad like saarto muuqaalkan waxba kaa dhibi mayso annagana dhiirigelin ayay noo tahay sidoo kale subscribe ku jiid buggan si aad uga mid noqoto saaxiibada nagu wehelinaya geedigeena 100,000 mar kale habeen wanaagsan daawadayaal qaybaha ugu horeeya ee wararkeena ayaan ku bilaabaynaaye soo dhawaada boqor buur madow ayaa mar kale weerar afka ah waxa uu ku qaaday garaadada maamulka waqooyi bari oo ugu horeeyo garaad jaamac garaad cali oo xurguf siyaasadeed oo muddo dheer soo jiitamaysay ay kala dhaxayso boqor buur madow isla markaasina dhaqdhaqaaqyo culus waxa uu ka bilaabay boqor buur madow deegaanada iyo degmooyinka maamulka gobolka Sanaag halkaasi oo xilligan abaabulkii ugu xoogana uu ka soconayo boqor buur madow oo hadlay ayaa tilmaamay in garaadada maamulka waqooyi bari ay yihiin kuwa markaasi aan la garanaynin cidda heeb ahaan ay ku abtirsanayaan sida uu hadalka u dhigay isagoo arrintan la tilmaamay in uu ku durayay garaad jaamac garaad cali oo ka mid ah ismada dhaqanka iyo waxgaradka ku sugan qaybo ka mid ah gobolka ee markaasi Sool isla markaana talada deegaanada maamulkaasi loo daba fariisto boqor buur madow ayaa abaabul ciidan oo dhinaca dagaalka ah waxa uu ka bilaabay deegaano ka tirsan gobolka Sanaag oo dhaqdhaqaaqyadii ugu cuslaa hadda ay ka soconayaan isla markaana laga cabsi qabo in laga soo qaado duulaanka culus ee ka dhanka ah maamulka waqooyi bari ee lagu doonayo damaca ku aadan in lagu qabto magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka Sool ee fadhiga u ah maamulka uu hogaamiyo Cabdulqaadir Firdhiye ee Curdunka ah ee ka hana qaaday deegaanada iyo degmooyinka maamulka waqooyi bari xogta iyo macluumaadka la xaqiijiyay ee soo kordhaya ayaa sidoo kale tilmaamaya in boqor buur madow uu afka ku dhuftay in markaasi la qaban doono magaalada laasacaanood dhawaan isla markaana ay diyaariyeen ciidan xoog leh oo loogu talagalay in ay weeraraan magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka Sool sidoo kalena gacanta lagu dhigi doono kal hore garaad jaamac garaad cali iyo sidoo kale boqor buur madow waxa dhaxmaray dagaal dhinaca afka ah iyadoo boqor buur madowna uu tilmaamay in aysan garanaynin cidda uu ku abtirsanayo garaad jaamac garaad cali laakiin cidda uu sheeganayo ay tahay
kuwa markaasi soo korsaday sida uu hadalka u dhigay labada nin dagaalkooda oo muddo dheer soo jiitamayay ayaa xilligan u muuqda inuu mar kale banaanka imaanayo iyadoo boqor buur madowna ay ka go'an tahay xilligan inuu gacanta ku dhigo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaana ka mid yahay ismada dhaqanka ee abaabulka kicinta dagaalka la xiriira ka wada magaalooyinka gobolka ee Sanaag halkaasi oo dhaqdhaqaaqyo culus muddooyinkii la soo dhaafayba uu ka waday boqor buur madow waxa uu sheegay in aan la aqbali karin in magaalada Laascaanood ay ku sii sugnaadaan kooxaha uu ku tilmaamay in ay yihiin huwanta sida uu hadalka u dhigay oo ula jeedo ciidanka maamulka SSC Qaatumo ama waqooyi bari iyadoo arintan ay u muuqanayso mid markaasi u baahan in dabcan wada hadallo laga galo isla markaasina xilligan u muuqanaysa in boqor buur madow uu seefta gasha kala baxay sida dadka qaar ay tilmaamayaan iyadoo dagaal culusna laga cabsi qabi karo in halkaasi uu ka dhaco maadaama labada dhinac ay yihiin kuwa markaasi hubaysan isla markaana midna uu yahay difaac midna uu doonayo in markaasi uu weerar ku qaado magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool laakiin inta ka horeysa maamulka waqooyi bari ayaa isna qudhiisaba doonaya inuu gacanta ku dhigo magaalada Laascaanood aflagaadooyinka qayaxan ee maamulka waqooyi bari iyo garaadada maamulkaasi uu u geysanayo ninka lagu magacaabo boqor buur madow waa kuwa muddooyinkii ugu dambeeyay aad u soo laalaabanayay xargahana goostay sida dadka qaar ay tilmaameen isla markaana loo baahan yahay in maamulka waqooyi bari arrintan ay ku baraarugaan sidoo kalena aysan fududaysan sida ay ku taliyeen qaar ka mid a khubarada ka soo jeeda maamulka waqooyi bari haddaba wixii ku soo kordha wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan haddii allaha ugu dalo uu raalli ka noqdo markana saraakiil uu ka mid yahay generaal Odawaay Yuusuf Raage ayaa ku wajahan furmaha dagaalka ee gobolka Shabeellaha Dhexe madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu amar ku bixiyay in la xureeyo degmooyinka Aadan Yabaal iyo masaajid Cali Gaduud inta aysan dhamaanin bishan Oktoobar ee maanta 14 maraysa ciidankii ugu badnaa oo ka tirsan kuwa xooga dalka iyo ciidamo aad u fara badan oo ka soo jeeda beesha Abgaal ayaa la sheegay in ay caawa buux dhaafiyeen deegaanka lagu magacaabo Wargaadhi Raagaceel iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe kuwaasi oo la doonayo in laga qaado duulaanka culus ee lagu wajahayo degmooyinka Aadan Yabaal iyo masaajid Cali Gaduud Aadan Yabaal iyo masaajid Cali Gaduud sidoo kale caawa wararka la helay waxay tilmaamayaan in duqeymo aad u culus oo diyaaradaha dagaalka ay fulinayaan in caawa sida roobkii oo kale ay ugu daadanayaan degmooyinkaasi lana arkayo meelaha qaar holaca iyo uurada ka baxaya gantaalada ay ridayaan diyaaradaha dagaalka ee saaxiibada caalamka dhinaca cirka ka taageera Soomaaliya ay ridayaan xogta iyo macluumaadka la helay waxay tilmaamaysaa in generaal Odawaay Yuusuf Raage taliyaasha ciidanka xoogga qaybahooda kala duwan sida taliyaha lugta iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee saraakiisha ciidanka in ay ku wajahan yihiin maalmaha soo socda deegaanka lagu magacaabo Wargaadhi oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe wararka qaar ayaa sidoo kale tilmaamaya in ciidanka Turkida ah ee ku sugan Soomaaliya ay qayb ka noqon doonaan dagaalka la doonayo in lagu xureeyo magaalooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe oo iminka seefta uu gasha kala baxay madaxweyne xasan sheekh maxamuud sheegana in aan la aqbali karin in dalka doorasho uu aado iyadoo Aadan Yabaal iyo masaajid Cali Gaduud aysan xor ahayn deegaanadaasina ay yihiin deegaano muhiim ah oo loogu talagalay in ay markaasi shacabku xilligan ka dhidhiyaan maleeshiyaadka kooxda shabaab ee halkaasi ku sugan isagoo baaq u diray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in ciidamada dadka deegaanka si markaasi laab furnaan ah ay uga qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah kooxda shabaab beesha xawaadle ayaa dhinacooda iyagu wali aanan wadin dhaqdhaqaaqyo ay ku doonayaan inay ku xureeyaan degmooyinka Maxaas Moqokori iyo sidoo kale degmooyinka kale ee ay ka mid tahay Ceeldheer iyo sidoo kale degmada la yiraahdo Raagace waa degmada la yiraahdo markaasi Aboorey iyo sidoo kale deegaanada kale ee ka tirsan oo ceel qooxle ay ka mid tahay oo xilligan markaasi aysan gacanta dawladda federaalka Soomaaliya aysan ku jirin xogaha iyo macluumaadka aan ka helayno deegaanadaasi ayaa tilmaamaysa in beesha xawaadle ay tabanayaan markaasi tabashooyin dhinaca dawladda federaalka Soomaaliya lama oga xaaladda sida ay noqon doonto laakiin waxa muuqanaysa in mar kale la amba qaadi doono duulaanka ka dhanka ah kooxda shabaab oo markaasi laga sameynayo deegaanada iyo degmooyinka dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe oo ay qayb ka tahay degmada la yiraahdo Aboorey iyo Sooman iyo sidoo kale deegaano kale oo muhiim ah oo ka tirsan gobolkaasi oo xilligan la doonayo in maleeshiyaadka kooxda shabaab markaasi laga saaro haddaba wixii ku soo kordha oo warara
wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan saraakiisha ciidanka ee tegaya gobolka Shabeellaha Dhexe iyo sidoo kale duulaanka culus ee la doonayo in lagu qaado degmooyinka Aadan Yabaal iyo Masaajid Cali Gaduud oo la amray inta bishan ka dhiman in markaasi lagu xureeyo sida amarka ka soo baxay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo qeexayo sida aan xogta iyo macluumaadka ku helnay wixii ku soo kordho wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan haddii Allah ugu dala waraale ka noqdo markana dagaal u dhaxeeya maleeshiyaadka beelaha Saleebaan iyo Duduble ayaa ka taagan gobolka Galgaduud iyadoo xiisada labada dhinacna cirka isku sii shareerayso marba marka ka dambaysa sida xogo iyo macluumaad la helayo ay xaqiijinayaan wararka ka imaanaya deegaanada ee markaasi ka tirsan gobolka Galgaduud ee markaa maleeshiya beeleedka ay ka wadaan hub urursiga ayaa waxa ay ku waramayaan in xaaladdu ay tahay mid markaasi aan deganeyn waxaana lagu soo waramayaa deegaanadii dhowaan ay ka dhaceen dilalka arxandarrada ah ee loo geystay hooyo iyo 3 gabdhood oo ay dhashay in xilligan ay ka muuqanayso saansaan dhinaca colaadda ah deegaanadan oo hoostaga deegaanka lagu magacaabo Qaayib oo ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa xogta iyo macluumaadka la helay waxa ay xaqiijinaysaa in xilligan markaasi maleeshiyaadka la arkayo iyaga oo isku hub urursanaya sidoo kalena dagaal laga cabsi qabi karo inuu ka dhex qarxo beelaha markaasi wada dega deegaanada iyo degmooyinka gobolka Galgaduud oo ay qayb ka yihiin markaasi beelaha Saleebaan iyo sidoo kale beesha Duduble oo iyagu doonaya in ay si toos ah uga qayb qaataan amaba markaasi ay isku farasaaraan dilalka la xiriira aanooyinka qabiilka waa kuwa ku soo badanaya muddooyinka la soo dhaafay deegaanada maamulka Galmudug sida markaasi muuqanaysa waxaana Galmudug ilaa iminka marka laga soo tago inay gacanta ku soo dhigtay raggii dambiyada geystay aysan jirin ilaa hadda is-horstaag lagu sameeyay dagaalada la xiriira aanooyinka qabiil iyo in la heshiisiyo beelaha walaalaha ah ee halkaasi ku dagaalamaya beelahan markaasi maleeshiyaadka ka soo kala jeeda ee Duduble iyo Saleebaan ayaa la tilmaamay in ay markaasi wacad ku mareen midba midka kale in uu ka arsan doono sidoo kalena ay qaadi doonaan duulaano culus iyadoo aanu ka warqabno in dagaal beeladii ay ka dhaceen deegaano hoos yimaada ee gobolka Galgaduud gaar ahaan magaalada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud laakiin deegaanka lagu magacaabo Meersi iyo sidoo kale deegaanada kale ee hoos yimaada inkastoo dagaaladaasi hadda aysan markaasi soconin laakiin wali ay ka jiraan xaaladihii la xiriira dhinaca aanooyinka qabiilka wixii ku soo kordho wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan haddii Allah ugu dalo waraale ka noqdo markana xilka qaadista wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa banaanka timid iyadoo seefta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna ay dul hooganayso ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo la taliyaasha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay tilmaameen in xilligan ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre loo baahan yahay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu iska horwareejiyo sidoo kalena markaasi bedel lagu sameeyo golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya maalinimada khamiista ah ee soo aadan isbedel ayaa lagu sameyn doonaa xubno ka tirsan golaha wasiirada oo iminka xilal haya ayaa laga yaabaa in ay xilka waayaan waxaana qayb ka ah wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaana la tilmaamay in booskaasi la geyn doono ninka lagu magacaabo Odawa oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya aadna ugu dhow madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud lama oga xaaladda sida ay noqon doonto laakiin xubno magac ku dhaxlay golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa xilalkooda gabi ahaanba weyn doona waxaana ugu cadcad Axmed Macalin Fiqi iyo sidoo kale xubno kale oo ka tirsan markaasi golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre xubnaha mucaaradka ah ee ka soo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa Axmed Macalin Fiqi u arka in uu yahay afayeenka dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya arintaasi oo markaa xilligan abuuri karta in xasilooni iyo sidoo kale markaasi dhinaca amniga qalqal in uu ku yimaado sida ay qabaan dadka qaar waxaana wasiir Axmed Macalin Fiqi la sheegay in uu sababsan doono hadallo mararka qaar u jeediyay kuwaasi uu ku difaacayay dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya oo mucaaradka ku dhalisay in ay markaasi u diyaar garoobaan dagaal ka dhan ah dowladda federaalka Soomaaliya haddaba wuxuu ku soo kordha golaha wasiirada isbedelada lagu sameeyo maalinimada khamiista ah ee soo shaac baxay iyo xilka qaadista ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo iyaduna banaan ka timid wararkeena iyo warbixinadeena soo socda ayaad ku daawan doontaan haddii Allah ugu dalo waraale ka noqdo haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir like sar muuqaalkan subscribe de boggan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada halkan uga helo wararka warbixinada iyo macluumaadka mar walba aan halkan idinkugu soo gudbinayno waad mahadsantihiin daawadayaal soo dhawaada habeen wanaagsan